maanta Norway ku nool yahay laakiin wadankii la maalintuu dhashay ilaa iyo maaragtay 2000 uu soo gaaray maaragtay wadankii joogay oo maaragtay alxamdulillah maantana inuu nala joogo asigoo xay ah oo nool haday qof baa ka dhawaajisay oo tiri taariikhda intuu joogo nala fadhiyo in laga dhawaa maaragtay laga reebo way fiicnaan lahayd وعوض horta wuxuu meesha u fadhiyo qayb bay ka tahay in maaragtay taariikhdiisa duubanto la xooga anaga aan asigii intii taqaanana way taqaanaa intaan aqoonina bal hadda ay barato cilmiga ku duugan iyo way aragnimada dheer oo ku duuganna aan bal qaybo aan ka dhalin macaawadii Allah oo dala idmo waxa kale oo jirto maaragtay boodari xoogeeda baa lahaaday dhan oo aniga boodariba aan ka mid nahay labadeena hadda aan ku gacan dambayno inay ka shaqaynayso buuggii oo complete ah oo haddii Allah uu daro uu idmo sanadka dambe aad heli doontiin haddii mid ka caafimaad leh habeen wanaagsan dhamaantiin mudanayaan iyo marwooyin ka soo qayb galayaasha caawa sida aad ka noo soo sharfay aad baan idinkaga mahadcelinaa ka soo qaybgalkiina iyo dulqaadkiinaba sida ay luulu sheegtaba caawa waxaa nala jooga hal abuur weyn oo ka mid ah hal abuurada Soomaalida kuwooda ugu aan oran karo kuwooda ugu sarreeya uguna hal abuurka badan gaar ahaan kuwa ku caan baxay fanka banaadiriga hal abuurka iyo suugaanta banaadiriga loo yaqaan oo ah garab muhiim ah oo aad u weyn oo ka mid ah fanka iyo suugaanta Soomaalida marka waxaan doonaynaa caawa inaan halkan kula sheekaysano inaynu wax ka baranno inkastoo qof Axmed Deey oo kala aan hal habeen lagu soo koobi karin haddana inaynu in aad muhiim u ah inuu ka baranno ayaan rajaynaynaa waan ka mahadinaynaa laashin Axmed Deey Cabdi Gaashaan ku soo dhawow barnaamijka toddobaadka Soomaalida 2021 waxaan rajaynayaa in ilaahayna gaarsiiyo inaad sanado badan noo timaado oo aynu wax badan ka faa'iideysano soo dhawow baan ku leeyahay marka hore dadweynahana salaam bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idin salaamay ummadda Soomaaliyeed dhamaanteeda yar iyo weyn waa idin salaamay kuwa inta joog iyo kuwa maqan waa idin salaamay gaar ahaan waxaan u salaamay intiina inta fadhiso oo caawada noo soo huray waqtigoodii qaaliga ah mutacallimiinta leh aqoon-yahanada leh madaxdeennii hore leh oo meesha fadhiso marwooyin leh waa idin salaamay ilaahay raalinka idinka noqdo waa soo dadaasheen waqtiina qaaliga aad noo soo baajiseen marka aad umaasantiin waa idin salaamay intaanan hor u galin horta aan umaad celiyo waxaa la yiri ruux hadduu ku xasuusto oo soo xurmeeyo dantaada xasad looma noqdee ximintiisaa loo celiyaa bal horta aan umaad celiyo reer Somali week aan umahad celiyo keed aan umahad celiyo festivalka soo abaabuleen oo mar walba sanoraad runse ay hadda sheegaysa ayaan walaygu macsuumay waa soo gaari way fiisiya iga maqnaa haddana maanta waa ku soo noqaalay yiri kaalay London imaaw aadaan ugu mahad celiyaa tiirayarni waa ugu hadda waa u tiriyay oo gaaban waxaan yiri adduunyada maalin iyo haween mugdi iyo aftiin waaye adduunyada maalin iyo haween mugdi iyo aftiin waaye miisaanka taariikhda iyo waqtiga kala meeraaye maalin roob da'ayo iyo muusin jilaal waa kala macaan yihiin makaankii jana firdowsa iyo naar madoowaatay waa kala macaan yihiin maalin nabadgelyo iyo masiibo colaadeedna waa kala macaan yihiin maamulayaasha Somali week maamus iyo sharaf ayaad mudantihiin salaam macaano malabka dhiinkiisa ka macaan maanta iiga gudooma dhaqankaani maguuraanka ahaa oo mandaqada geeska Afrika magaciisa ku dheeraa
murtida eebbahey ku manaystay haddii magaaladan London musbaaxdiisa aad ka shideen maamuus iyo sharafaad mudan tihiin salaam macaano malabka dhiinkiisa ka macaan maanta iyo gudooma gaar ahaan ayaan canshuur oo gudoomiyaydaas iyo gudoomaan ما شاء الله تعالى وعاد يا قرب بدن هذا ما حسنت العاشر هذه برنامج كنا مركور دعيسة عن كله سوينا شخص بطء حتى وحنا وقت ومهلينا لكن حرمنا برسمين تدي لسمين جرمانة قص أيضا مركز سؤال وجوه الرئيسو عن ربنا دول مرتد وحواي هل أبور كاكي أديك نورش هذه كليته الله كودور نون جروجوك laakiin waxaan rabaa hal abuurkaagii oo saldhigga u ahaa jiritaankan qaybta aad ka tahay fanka banaadiriga balna noo dul martid wayaagii iyo waxqabadkaagii abuurka suugaaneed inaad noo dul martid aniga fankeyga horta wuxuu ka soo bilowday jaamacadda aan ka soo baxay waa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed fanka meesha ayaan ka soo bilaabay aniga 11 jir markaan ahaa dugsiga quraanka waa dhameeyay arladeena shabeelada hoos aan ku dhashay shabeelada hoos markii quraanka la dhameeyo masjidka ayaa lagu geynaa culumadii iyo odayaashii soo fadhiisanay waa lagu imtixaama sidaad aayad u qaadinaysa inaad xaafidtid iyo inaad damintid marka masjidka markii la keenay oo baka baxay kadib waxaan bilaaway shirkiyaan bilaaway fankana ma aha muusiga kaliya ma aha fanka wuxuu ka soo bilaabanaa ciyaaraha dhaqanka Soomaaliyeed marka shabeelada hoos anaga degmada Afgooye ayaan deganaa meeshaan ku dhashay meeshaan ku soo barbaaray degmadeena waxay gaar u lahayd dabshidka markii la gaaro in leestumo shabley wax la yiraahdo jiray inta aan shableyda aan dabshidka la gaarin waa lees goomaara jiray ninkii gabadhii wicil dhashay waa la goomaara wiilkii oo xoolo dadaad qaatay waa la goomaara labadii walaal oo isdacbeeyeen waa la goomaara adiga ki dhaqankaas ayaan ku soo barbaaray haddana waxaan u gudbay dhaqankii kale oo gabdhaha markii la guursanaayo ma ahayn sida hadda oo kale muusiga ma la tumeenin ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka loo tumaay ciyaarta la yiraahdo dhinaceena sarax dheere wala waleeyda loo tumaay saayla ayaa loo tumaay sida waqooyiga oo batarka iyo zeylici oo loo tumaay gabdhaha oo kale dhankeena anaga ciyaarahaas loo ciyaaray marka ciyaarahaas aan ka qayb galay gabdhaha waa la amaana anaga suuligaantayna oo reer koofar ama banaadiriga aan iraahay anaga jiifta malaha suuligaantayna waxa waay gabay iyo marjiib wax la yiraahdo jiiftayna marjiib waay marjiibka barigii hore inta aan warqadaha la keenin markaas la isku dira jiray adeeg ninka loo faray markaas loo diraa waxa la leeyahay adduunya arkeesidka oroday ka iilatay looma ooyo ee bahayga soo iraadee aqalkaada soo abaarto macna jiiftada intaas waay gabarto golganaana ii joogto oo goobweenka adeeganayso gamoon bahlay u gaadgaade guurkeeda kama geedgalaya u leeyahay marka jiiftada taas waay anaga iyo maxalina marka la gabyaayo ninka markuu laashin soo noqdo anaga gabyaaga laashin aan yiraahdo laashinka markuu gabyaayo macna anaga sida si waqooyi oo kala maansa ma jirto xageena waxa lagu baraa dhulka gabadha dhulka xoolahooda locdooda ay degto oo caanaha ka soo qaadayso ama beerahooda balcad yar iyo balcad weyne buburka bishaara qaboob baliga xaaji abroone laanta baawi xasan kuulo beerhi abkaada waa la leeyahay ya waxa la leeyahay guf caday gaada sameey manaw geela beela magaada beele in gaslow madile guwaala geed galiye gacanta dhiig la geela ku maala gabadhiisiyay goobta ma soo gashida la leeyahay gaar maxaa u joogtaa ya godgodka biyaneef ceelka gamboolem ku yaal carada gogol ma doonto helada giirow ma hureen laanta garaarta laheed guti lama gutiile gal uu kan intii lagu geeyo geela ku maalu gabadhiisa goobta ma soo gashida loo gabdhaha ya marka anaga suugaantaan reer koofar sidaas waaye ani ciyaarahaas aan ku soo barbaaray laashinimadaas aan ku soo baxay kadib ayaan magaalada soo wareegay لكن المقالة عادين عيارها نكون بالأوضة فنك فضل معهم نعم دكسي القصابر قران كسور رميس حتى الفنك نحكيش نعم سيمر كأي هاي نلاش عسيتو أنت هذا المقالة سوق النهار طارته
dadkii waalidkii kula joogay iyo ma lagu qaabilo hore laga qaabilo waxa la yiri orado dhabarka laga taabto mise dhibaa kala kulanta calaasha dhibaa kala kulme waalidiinta ma jecleen aabahayga waliba aada u nabca inaan fankaas noqdo ama aan gabiyo cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka tuuladayna laga tumaa beeraleyan een haweenka jimcada la tumaa markii waa baxaan ira wuxuu leeyahay caawa ushaada hor u qaado ani adiga waa isdileena caawa hadii cayaartaas aad tagto hooyaday alla u naxariista waxay leedahay albaabka ma soo xirayo koodhe laanto yaraan soo saara markii ciyaaraha soo dhameysato aayir iska soo feed soo gal aaban waa hurdaay ma ku ogaay dhigin sidii aan ku baxay ciyaartay waa soo dhameysnaa waa iimaanay waxa iigu ciil badnaanin abtigeyga ah asoo masjidka ka yimid salaad duhur soo dukaday iyo anigoo ciyaar ka imid arkay oo gabar la guurinayo markaas uu yiri Axmed day meeshii laga dhihi lahaa Sheikh Axmed meeshii laga dhihi lahaa miyaad laashin Axmed ka dooratiya uu yiri aadan u kululaad maalinkaas waa uu kululay abtigeyga yaa ma dib malahan abtig Sheikh nimadan waa wada quraankan waa aqrina kana ma dhaafaya balwadeeda waa jeclaan iri marka dib waa la soo kulmay hada ala kulli xaajo wax badan ajiri hada waqti dambana waa la jooga ma dhameyn karno horaan u sii soconayna insha Allah waa mahadsantahay Axmed Abdi Kashan waxaan doonayaa inaan dib ku celiyo xogaa xilligii bilowga ahayd fanka banaadirga dadku way maqlaan waxaan doonayaa inaad sheegtid fanka banaadirga iyo banaadir iyo dhulkaas iyo dhaqankiisa iyo meesha aad ka imaanayso si ay u fahmaan dadka aan garanaynin waxaan doonayaa inaad xogaa dib noo yara celiso banaadir waa dhul ballaaran oo aan ahayn kaliya gobolka banaadir inta hadda loo yaqaan waa dhul miyi iyo magaalo leh waa dhul bad iyo bari leh waa dhul dhaqamo kala duwan leh iyo dhaqamo hoosaad waa dhul lahjada leh waa dhul qabiilo leh laga soo bilaabo xeebta Kismaayo ilaa lagu geeyo hiiraanka soo rogiisa ilaa xeebahaas oo dhan baa banaadir ah marka intaan magaalada la soo gelin waxaan doonayaa horta dhulkaas ballaaran iyo dhaqamada ka jira iyo bandooria horta inaan wax yar xogaa faahfaahisid horta dadka banaadir waxay u haastaan in xamar kaligiisa uu yahay waa sida aad sheegtay ma aha banaadir hiiraan ruskiisa banaadir oo ka bilaabanaa ilaa Kismaayo dadka dago isku banaadiri waa isku lahjadna waay ilaa walna weyn banaadiri waay maxaa tiri maxaa siri muxuu yiri maxaa dhahday waay banaadiri waay intaas marka inta isku dhaqanna waay Soomaalida markii la yiraahdo dhaqankeeda aqoon-yahanana waa fadhiyana meesha Soomaalida saddex waay waa reer guura beeraley iyo reer xeebed dhaqankan sidaas uu qaybsan yahay marka banaadirigana xeebaha iyo beeraley iyo xoololey waa isugu daran yahay dhaqankooda waa isku dhaw yihiin bil midal Kismaayo dadka dago banaadir ay u badan yihiin soo dhaaf inta dhankan kale marka timaadid oo cadala iyo maxaa la yiraahdaa warshiikh iyo kulli dadka dago banaadir waay la jadooda waa isku dhawdaa dhaqankooda waa isku dhawiyaa wixii oo qoladan oo marka ay dhibsadaan cadana waa laga dhibsadaa marka mar walba dhaqankooda waa isku dhaw yahay xagga maxaa la yiraahdaa sheeg adiga farsamada ha ahaato xagga beeraha beeraleyna waa leeyihiin reer xoolaadna waa leeyihiin reer banaadir dad oo loo dhaqaayna ay leeyihiin dad waxa jirta ii sheeg adiga geeley aha jirta waxaan xasuustaa gabar oo looleey oo in adeerkeeda lagu daray gabadhii inay reer dhaqato waa diiday mar walba waa soo caroonaysa mar walba waa soo caroonay bas aabaha iyo hooyada waa tashadeen waxa la gabadha inay reer dhaqato marabtee seela yeela gabadhii waxa la hool hala gali hala kululeeyo maalinkii waxa la raac waa ki iimaanaysa loo markii hadan cuntadii kariya la shaahi iyo soortii oo madiidinka ay kariyaysa xoolaha la maala hadan kadib waxa la miskatun gabadhii waa daashi maalmaha kamid waxay tiri idoo misay tumeeso hin hooyoy anaga hooyada ayow andira arwaanoogi naxariis mataal ayow ninkeyga malayna ay tiri ninkeyga biiga fiicnaa ninkeyga biiga fiicnaa meeshan way hoolad igu dhibtaane bas waa markaa ninkeyga no gabadhii wixii intaas ka dambeeyay reerkeeda ay dhaqdo gashi marka suugaanta ay
ay ku caawinayso waa heestii mooyaha heestii mooyaha waa iyadoo masiga tumayso waay marka waa heestii mooyaha oo banaadir joogto aad ku dumay aad marka lama soo koobi karo marka aliindig sameynayaan waxyaabo gaar ay leeyihiin marka heesa oo waxa jira oo beeraha loogu heesaayo oo la leeyahay beer ma fasho baahiya u taal bariga baantii lama haayo boorsa buuxiskii baratana loo banaan baxa beerta falo alislee waa isgubaabiya marka dadka xiyaabaha soo kale kana badda suugaan ay leeyihiin adiga ma soo koobi kare kullayba waa marka inta hees hawleed ee lagu yaqaan reer guuraaga in la mid ama ka badan baa dhankan kalena ba sidoo kale waxaan doonayaa marka inaad iyadana wax yar ka tiraahdo ereyga laashin dad badan ma yaqaanaan labada macnihiisa waa dhab jirta weey marka waxaan doonayaa ereyga laashin isagana inaan xogaa wax looga sheegtay wuxuu yahay laashin waxaa waaye gabyaa meesha laga leeyahay gabyaa ama carabtu waxay tiraa shaacir ninka gabyaayo anaga ninka duuba mar soo gabyo galo laashin alale waa shaaciro kale laashin taas lagu jeedaa ninka gabyaaga waayo oo goobta ka hadlaayo umada uu gabyaayo dhulka amaanayo gabdhaha amaanayo xoolaha amaanayo ninkaas laashin la yiraa laakiin maxay hayteen ayadoo saas oo dhaho hadda aad si fudud gabayga u dul saartay haddana laashinka dhaqan ku xiranaa jiro waa ilaaladii bulshada xaafadda hadday wax ka dhacaan afhayeenkii bulshada waa nooc kale oo gabyaaga ka yara duwan aa la dhihi karaa haddaa u fiirisa marka nolol maalmeedka laga fiiriyo marka maxay qaban jireen laashiniintu laashin kaliya ma aha afmaal waa la yiraahdaa afku leebla xataa waa la yiraahdaa mar waxaa jirta meel oo gabay oo ka tirinaayo oo habaar ay tirinayaan jira afku leebla waa arna dhaafiya ninkaana la leeyahay waa la yiraahdaa afku maal waa la leeyahay marka oo dadka uu gabyaayo oo bulshada ay ka hesho ama anaga waxa ka gabyaa laashinka bilmathal wiil hadii la aroosinaayo dhaqanka oo reer banaadiriga wiil hadii la aroosinaayo bari waxa la leeyahay waxa la aroosinaa wiilkii boodhari laashinka waa loo sheegay ilaa 3 laashin 4 laashin imaanis wiilka waa loo gabyaa aboogiisa qabiilkiisa la sheegaa ilaa dhaqankii Soomaalida way beerihiisa la sheegaa xoolihiisa la sheegaa wiilka waa loo gabyaa afku maalkii ay yimid dadkii oo hore wax garadka ahaa qaalin lu'aada la soo qabanaa leeyahay hay laashimo qaalintan adiga way sooriyadaada way afku maal markaas oo biya markii la xumeeyna waa habaarta ma aha afku leebla waa leena dhaafiya ya waa maasanta marka hada waxaan ka soo sheekeynay banaadir muxuu yahay xagga salkii baan ka soo bilownay hadda waxaan doonaynaa waxaan rabaa inaan ku keeno fanka banaadiriga ee casriga ee magaalooda sida muqdisho oo kale waxaad ka bilowdaa markii adigu aad soo gashay adigoo wax yar faahfaahin laga siinayo siduu ku bilowday fanka casriga ee magaalada ee banaadiriga ee hadda annaga aan naqaano waa maasanta boodhir horta fanka banaadiri waa layga horeeyey laba qayb 3 qayb ay ugu horeysay ani qaybtii afaraad aan ahaa kullaybo rag badana joogo oo iga sii badiya laakiin inta aan xasuusto aniga layga sheekeeyay ilaa uu naxariistay nin cali maliixaan la yiraaho yani macluw nuur la yiraaho allah uu naxariistay labadooda iga sheekay jiray iyo qaasim hilowla allah uu naxariistay dadkaas iga sheekeen jiray macnaha sida fanka uu ahaa sidii heerkii ay ka soo bilaabeen fanka banaadiriga sidiisa wuxuu ka yimid ciyaaraha dhaqanka uu ka yimid ciyaaraha dhaqanka laxankiisa waxa laga soo qaadan jiray ciyaaraha hiddaha dhaqanka laga soo qaadan jiray markii magaalada yimid magaaladii waa balaarneed xamar waxa aad u deganaa nimanka liiraa hindiga iyo baaliyaanka iyo aad deganaa Soomaalidana badkii boy u ah kii guriga ugu shaqeeyay waa loo kii xaafadda la degan marka waxay sameey jireen filin hindi ay keenayaan dadkii invitation ay siinayaan ticket ay u geenayaan lacagta ana ka bixinay si macnaa ay ugu hanuunaan oo dhaqankoodaas u baraan iyo u dan leh nimankii abwaanada oo barigaas joogay waa ogaadeen macnaa in bulshadii oo nimanka ay jiito hayaan oo hindi loo wada bulshadii markaas ay kulmeen waxa li anagana aan sameeyno ribaayada banaadiriga aan sameeyno oo sidoo kale masrax la sameeyo atooraha iyo atriishadii hala soo qaado ya heesiina aan sameeyno bal sidii hindiga amal masrax la fuulo hoosna hala heeso hala ciyaaro
sidii yaa lagu heshii markaasaa ilaahay u naxariistay abasgeedow diinle koob suugaanta asaa bilaabay ninka ugu horeeyay waay oo abwaanka banaadiri oo tiriyo ilaahay u naxariistay ii kirshi caliyow cali